ku soo dhawaada asxaabta ku xiran janalka Rafiiq al-Macruuf. Maanta waxaan ka sheekaynaynaa taariikhda Maxamed Qanyare Afrax, Allah u naxariisto oo saaka geeriyooday. Maxamed Qanyare Afrax wuxuu dhashay sanadkii 1941. wuxuu ku dhashay sida la sheego tuulo u dhow degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ee Soomaaliya. wuxuu ka mid noqday ciidankii booliiska horraantii sanadkii 1960. wuxuu u dalacay xilka korporaalka ka hor intii uusan u baxsan dalka Kenya. horraanta sanadkii 1970 walaalkiisa Xasan Qanyare oo ahaa ganacsado ku noolaa Kenya ayuu Maxamed Qanyare u baxsaday, kadibna halkaas ay iskala shaqo bilaabeen. waxay asaaseen company la dhihi jiray Speedway Trans, kaasoo si weyn uga dhex muuqday bariga iyo bartamaha Afrika intii u dhaxaysay sanadadii 1970 ilaa 80. sidoo kale Maxamed Qanyare Afrax ayaa maalgashtay Trackis, company gawaarida xamuulka qaado ah. sidoo kale wuxuu taageero dhanka dhaqaalaha siin jiray jabhadihii ka soo horjeeday hogaamiyihii Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre, Allah u naxariistee, taasoo u keentay Maxamed Qanyare Afrax in madaxweynihii dalka Kenya ee Dara Armoy uu ka mamnuuco guud ahaan dalka Kenya kadib markii ay caddaatay in taageero uu siiyo jabhadihii ka dagaalamayay Soomaaliya. Maxamed Qanyare Afrax wuxuu ka mid ahaa asaasiyaashii maalgelintii jabhadda USC, taasoo lagu sameeyey dalka Talyaaniga 27 January sanadkii 1987, taasoo hogaamiye ka ahaa Generaal Maxamed Faarax Ciidi. intii lagu guda jiray horraantii dagaalkii sokeeye ee sanadkii 1993 ilaa 1999, Maxamed Qanyare Afrax wuxuu ka mid noqday xubnihii ugu firfircoonaa ee ka qayb qaato dib u heshiisiinta Soomaaliya, kana soo muuqday shirar badan oo lagu qabtay wadamo badan sida Masar, Itoobiya, Djibouti iyo Kenya. sidoo kale wuxuu ka mid ahaa hogaamiye kooxeedyadii ka talinayay magaalada Muqdisho sida degmada Dayniile uu gacanta ku hayay airportkeeda. sidoo kale wuxuu ka talinayay qaybo badan oo ka mid ah suuqa Bakaaraha. February sanadkii 2001 ayaa lagu qanciyay inuu ka mid noqdo Maxamed Qanyare Afrax dowladdii ku meel gaarka ee Soomaaliya. waxaa loo magacaabay wasiirkii kalluumaysiga. sanadkii 2004 wuxuu u tartamay Maxamed Qanyare xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya, isagoo rajo weynna ka qabay inuu ku guuleysanayo, laakiin si dirqi ah ayaa looga awood badiyey Maxamed Qanyare, waxaanu ku guuleystay madaxtinimada Soomaaliya xilligaas. Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed. December sanadkii 2004 Maxamed Qanyare waxaa loo magacaabay wasiirkii amniga ee dowladda TNG-ga. isla xilligaas wuxuu sheegay Maxamed Qanyare inuu yahay siyaasiyiinta ugu ciidamada badan, kaasoo ciidankiisu gaadhayo 2,000 oo ciidan, iyo waxa uu sheegay inuu haysto 100 xirfadayaal ah. wuxuu sheegay sidoo kale inuu yahay ganacsado weyn heestana aeroboor u dhow magaalada Muqdisho. 8 November sanadkii 2005 Qanyare iyo wasiirkii hore ee ganacsiga dowladdii ku meel gaarka federaalka Soomaaliya ee TNG-ga Muuse Suudi Yaraxow ayaa u diideen in ay la kulmaan ra'iisul wasaarihii hore ee xilligaas Cali Maxamed Geedi si dowladda loogu soo raro caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. isla xilligaas wuxuu u duulay Cali Geedi magaalada Jowhar oo xilligaas uu ka talinayay Maxamed Dheere si ay saldhig ugu noqoto dowladdii uuna uga soo raro magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Maxamed Dheere iyo ra'iisul wasaare Geedi way isla afgarteen, wayna isku waafaqeen in dowladda loo soo wareejiyo magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. dabayaaqadii February sanadkii 2006 Qanyare wuxuu ku biiray koox u ololeynaysa in dowladda laga raro magaalada Jowhar loona raro magaalada Baydhabo, kadib markii ismaandhaaf uu soo kala dhex galay Maxamed Dheere iyo dowladdii xilligaas. ugu dambeyntii waxay u guurtay dowladdii magaalada Baydhabo ee gobolka Baay. dagaalkii maxkamadaha iyo isbahaysiga la dagaalanka argagixisada, Maxamed Qanyare wuxuu ka mid ahaa xubnihii isbahaysiga ku dhawaaqay. waxaa lagu eedeeyey in ay Maraykanka lacago ka qaateen ayna u shaqaynayeen CIA-da. waxay dagaal galeen midowgii maxkamadaha, taasoo sababtay markii dambe in laga saaro isbahaysigii 27 Maarso sanadkii 2006 guud ahaan magaalada Muqdisho, ayna la wareegaan maxkamadihii. hubka dhigistii hogaamiye kooxeedyadii 17 January sanadkii 2007 Maxamed Qanyare Afrax iyo Muuse Suudi Yaraxow waxay noqdeen hogaamiye kooxeedyadii ugu horreeyay ee lagu sameeyey hubka dhigista. waxay sheegeen in ciidamadoodii ay ku wareejiyeen dowladdii federaalka ee ku meel gaarka Soomaaliya oo hogaaminaya Cabdullaahi Yuusuf, waxaana hogaaminayay hubka dhigistaas jenaraal la dhihi jiray Jenaraal Naaji. ugu dambeyntii sanadkii 2013 wuxuu Maxamed Qanyare ka mid noqday baarlamaankii federaalka Soomaaliya ee xilligii madaxweyne uu ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud, kaasoo ugu dambeyntii uu ku wareejiyey xilkaas wiilkiisii Cabdiweli Maxamed. wixii intaas ka dambeeyay Qanyare uu ka fariisay siyaasadda Soomaaliya. xanuun in muddo hayay kadib
alle ha u naxariisto maxamed qanyare afrax wuxuu ku dhintay isbitaal digfeer saaka ee magaalada muqdisho taariikhduna ay ku beegneyd 29 juun sanadka 2019.